halkani waa kawaanka hilibka geela ee magaalada Jowhar abaaro 9kii aroornimo ayay ahayd xilliga Soomaaliya mar aan booqday kawaanka hilibka geela durbadayba waxa ay indhahiga soo qabanayeen muuqaalo muujinaya dayac iyo nadaafad daro baahsan oo ka dhex muuqda gudaha kawaanka hilibka geela ee magaalada Jowhar mar aan wareysi la yeeshay dadka ku iibsada kawaanka hilibka geela ayaa waxa ay sheegeen in ay nadaafad daro baahsan ay ku haysato kawaanka hilibka geela waxayna dowlad goboleedka Hirshabelle ay ka codsadeen in ay wax ka qabtaan nadaafad darada ka jirta kawaanka hilibka geela ee magaalada Jowhar waa kuwan iyagoo ka hadlay waxa warbixin naga siisaa eriga qiimihiisa لا إرسس أنجر ما هو إسبدل وين أويم حالة دي سقرة حي مروسة الرابع أويم كده مرة بوالدي كينو لاين ولا جدل أير البادي marka hilibka kiiladii markii hore inta ay jirteen iyo hadda inta gadan qiimaheelan gadoyna jinilan u shaqeynaa boqol kiiladiisa gada jirnay waagi irig oo noocaynti hadana boqol kiilan gadoyna mana ku sii gadmooyo wax rababa male xaqana qaraxo ka inta wax ka rabo male neefka eri maalintii maxaa ku soo qataa ملين إيشان ملين إلي حد بسيط كهش. مركا مالنتي نفك أريج ما يدين وذا الماضي ووحفة إلى مكانشان. مرة بكباب العكتيسة بالعكس يكرفنا. السجوا ملين إيشان بقول قد نايس ملين إيه بقول أما ملين إلا بإيمانه. ملين إلا ما تسكي إيمانه ملين إلي حكا كذي. هيلب وحان كذا أنا هيلب أريان كذا أريان كذا كيلد وحان كذا سديت كونو شرنا العجا. فائدة أكو قبتين مركا معتها والله واحد نور المعلومات وما فائدة صار صار سبجرت. waxaa kaloo sheegteen nadaafad darro inay ka jirto meesha nadaafad darro aad iyo ka jirta sida roobka uu gaay waliba xataa waxaan la'nahay meeshii aan qashqubka aad qashinka aan geeyleen maartay ma hayno qashinka soo marsii kartiin ayaaba noo dhahoyaa wadooyinka dhan waa noo diidan yahay macalad boontada qashinka xagga loo gudbay intii waa diidan yahay dowladda Hirshabelle maxaa ugu baaqaysaa marka dowladda Hirshabelle waxaan ugu baaqayaa in magaalada waa magaalo weyn oo caasimad ah oo la isku imaanaya inay u sameeyso meel qashinka la geeyo oo lagu shubo oo loo cayimo dadweynaha dhan afarta xaafadood 5,000 shilinka Soomaaliga hadda waxay noqotay goobta hilibka looda 3,000 shilinka Soomaaliga neefka looda waxa la gada jiray 3 milyan ilaa 7 milyan xataa tagi jiray hadda neefka looda qabaarka wuxuu noqday 300 shilinka Soomaaliga anigan jeex caloosh wuxuu naga gadaan 250 shilinka Soomaaliga goobta way dhigaysaa waxay ku leedahay gabadha 2 kuma dhiiba 3 kuma dhiiba 5 jir ayadoo gada jirto waxay ku leedahay 2 saddex kuma leeysina 2 jir iyo gooyay soo jiraysa goobta maxaan gadaa khasaara saan ku tiimbasanaa meesha saan u fadhiyaa igu salebo hadan 2 kuna laga siino 4 milyan khasaaran waa li leey dhudhuuma shaamba aybe konton 67 hadana 30 markii si horo nolol waa ku haysanay yaabana wax hanti ka tabcanin laakiin hadda kuma hayno hoosaan u socnaa neefkii markuu milyan gadan yahay 500 baan ka soo ururinayna waa nalagu dhagan yahay waa wada daymaysana qofka ugu yar baa $100 lagu leeyahay 100 milyan hayeeshadeeda midda nadaafada waxa waaye meeshii la geyn jiray oo ninkii miskiinka oo isla xamaaran jirnay oo geyn jiray waa laga soo celiyay hadii laga soo celiyay qashin qubay magaaladu u baahan tahay waxay u baahan tahay baabuur qashinka naga dheeraysa ama bahal loo sameeyo lagu soo shubo ama meel laga geeyo arriman bay u baahan tahay ninkii waxa la yiri nooma soo galin kartid oo jidkii waa laga soo celiyay annagii qurunkii waa na dhibooya dhaaf ma haysano annaka kala oradaan annaga la fahanagana war ma jira noloshanadii aba xiriir ku jirtaba marka ugu dambeyn dowladda Hirshabelle maxaa ugu baaqaysaa dowladda waxaan ugu baaqaynaa in wax nala qabto oo waxaan ku iri wax nalagu taro oo waa daymaysanayba annaka kala ordi doonaba Jowhar waa caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle waana magaalo kheyraad leh dadkeeduna 80% ay yihiin tabcato aanan haysanin daryeel dowladnimo nadaafad darada ka jirta kawaanka hilibka Jowharna aan booqanay waxay muujinaysaa daryeel la'aanta haysata shacabka reer Jowhar Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa Juba Shabelle News Jowhar